guddoonka xildhibaanada labada aqal waa saxaafadda guddiga madax bannaan iyo guddiga baarlamaanka waa salaamaya. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo labada guddiga madax bannaan iyo guddiga dastuurka madax bannaan iyo guddiga baarlamaanka shaqada ay soo qabteen inaan ugu mahadceliyaa rabaa. aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo baarlamaanka 11aad oo dastuurka dhameystirka dastuurka inaan ka mid noqdo aad ugu faraxsanahay. waxaan rabaa inaan toos u galo qodobada qodobka waxa waaye inaan toos u galaa rabaa qodobka 11aad muwaadiniinta. waxaa ku qoran muwaadiniinta oo dhan iyagoo aan loo eegin lab dhidig diin xaalad bulsho ama dhaqaale afkaar siyaasadeed qabiil ama naafanimo xirfad. muwaadiniinta haddii la dhaho waxay noqonaysaa waa ummadda Soomaaliyeed diinta in meesha laga saaraa qabaa. sababtoo ah muwaadiniinta markii la dhaho Soomaali dhammaan isku diin waaye isku dhaqan waaye. taas in meesha taasaa ka qabaa. qodobka 11aad waxa waaye qodobka kale qodobka 14aad qodobka 14aad farqadiisa afraad gudniinka fircooniga waxa waaye gudniinka fircooniga wax dhib badan oo ummadda gabdhahane u dhib badan waxa waaye xanuun iyo problem ay ka qaadaan waa hadda meelay ku qoran tahay in macnaa ii sheego gudniinka fircooniga loo gudo maba jirto meesha macnaa dadaa is awaawilo oo maamooyinkii guryaha dadka gudu jireen oo macnaa ii sheeg aan dhaqaatiir ahayn ayagaa waxaas awaawilo gudniin fircoon ka dhiga hortaas in la joojiyo waa wax fiican waaye. ilaa hadda dadaa wado oo macnaa wacyigelin badan in laga sameeyo arrintaas in la joojiyin waa soo dhaweynaynaa. jirdil ma ahee jariim waaye macnaa ii sheegay in qof macnaa xubin in laga jaro oo dhibaatadaas ilaahay og yahay loo geysto. macnaha maamooyinka waxaas sameynaayo ayagaa laga yaabaa inay fircooni yihiin dhibka ay ka marayaan ayagaa og mar gabdhaha yar inaan lagu sameynan taas iyadana waa soo dhaweynaynaa wax fiican waaye. qodobka waxaan rabaa inaan galo qodobka 16aad maadaama dadka qof kasta qodobka 16aad qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ku biiro qof kale ama koox. xaqaas waxaa ka mid ah inuu awaawulo ama ka mid noqdo ururo ay ka mid yihiin ururo dhaqaale ama xisbiyo siyaasadeed. wuxuu kaloo xur u yahay in uusan cidna ku biirin laguna qasbi karin lagu qasbi karo inuu cid kale ku biiro. horta ururo badan oo macnaa ii sheegay oo waxa waaye qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu ku biiro qof kale ama koox ama ururo. markii la dhaho waxa waaye dad badanaa urur iska sheegto oo diin kusoo dhuunto sida qawaariijtoo kale. marka arrintaas waxaa qabaa in la xadado oo qaabkay u dhigeen maana qaab kale inay u soo sameeyaan oo wax xadadan inay noqotaa taas qabaa. waxaan rabaa qodobka 20aad qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu awaawulo kana qayb galo kulamo ama banaanbax oo si xasilooni ah cabasho loogu muujinayo iyadoo aan ogolaasho loo baahnayn. qofkan meesha oo banaanbax uu ka sameynayo maamul ka jiro qofka banaanbax sameynaya xataa amnigiis in la sugo u baahan yahay. marka waxaa qabaa in lagu soo daro qofkaas banaanbax sameynayo in macnaa meeshaas maamul ka jira markaas inuu warqad ka soo qaato si amnigiis loo ilaaliyo uusa dhibaato ugu dhicin. macnaha haddii kale Soomaaliya waa isnaqaanaa qof walba waxa waaye banaanbaxuu iska sameynaa booryaruu iska soo sameysanaa waa amnigii iyo problemka oo macnaa ii sheeg problem kala meeshaas ka dhacay. arrintaas in aad loo fiiriyaa qabaa. waa qodobka 19aad qofna gurigiisa ama meesha kale oo isaga u gaarka ah
lama geli karo lamana baari karo lamana basaasi karo amar garsoore oo sababaysa la'aanteed qofka haddii uu arko qof dhibaateynaya mala basaas kara aniga waxaa u fahmi qofkaan haddii aa aragtid asoo wax haleynaya ma sheegi kartid aa u arkay macnaha sababtoo ah qofkan waa qofaa qof dilaya waa aragti maxkamadda qofka maxkamadda muu tagaa saldhigga u dhow uu tagaa saldhiggaasuunu ku sheegaa in qofkan qof uu dhibaateynayo ama meelaha hoobii laga soo tuuri karaa qofaa arki karo qofkaas macnaa ii sheegay ciidanka u dhow inuu u sheegaa muhiim ah marka waxaa qabaa dadkaas oo wax soo sheegaya inaan maxkamad lagu xiran ama qodobka guddiga waxay ka wadaan inay dadkii u faahfaahiyaan ilaan dastuurkan baarlamaankan kelima lagu dhaqmayo ummadda soomaaliya dhanaa ku dhaqmayso in macnaha dadka aad in loo faahfaahiyaa fiican si dadka ay u fahmaan wixii markaas oo laga wado sababtoo ah qofaa qof rabo inuu iska dilo ama qofaa qof rabo inuu dhibaateeyo haddii aad soo sheegtid macnaha qofka wuxuu kuu soo qaadanaa qodoba dastuurka saas ku qorno waa marka aad iyo aad aa umahadsantihiin